الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله noo suurtageliyay inaan iskuulka dib oo noogu furmo maalintii sabtigeeda ee shalay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa in fasaxii aan ka soo laabanay dhammaan ardada oo nabad qabaan xaaladoodu ay tahay boqolkiiba boqol. Imtixaan ayaan galnay, waxaan 2 asbuuc ayaan fasax galnay. maalintii bisha 1 oo shalay ku beegneed ayaan dib isugu soo laabanay. marka waxaan rabay inaan warbixintaas yar idinka siiyo halka wax marayaan. sidaa la socotaan iskuulku wuxuu soo shaqeeyay 4 bilood, waxaa dib u dhiman 4 bilood kale tood. waxaan galnay imtixaankii midterm examka, waa ardada aad iyo aad ay ugu guuleysteen. waxaan usii rajaynaynaa insha Allah guul dheeri ah in ay gaari doonaan. waxaan u samayn doonaa annagana dadaalka karaankeena inta ah ayaan u samayn doonaa. aad iyo aad ayaan ugu dadaali doonaa, horena waan ugu soo dadaalnay. waalidiinta iyo maamulka macallimiinta dhammaan waxay leeyihiin xiriir joogto ah ardayga imtixaanka heerkiisa hooseeyo. si gaar ayaan waalidkiisa ugu wargelinaa si kor loogu soo qaado moralkiisa iyo wixii ka qaldanna loo saxo, aqoontiisana ay aad iyo aad ay kor ugu kacdo. marka intaas ayaan rabay inaan idinla socodsiiyo iskuulka oo dib u soo furmay. marka waxaan ku salaamayaa salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen. iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed, waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab, adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday. waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo, weliba agoonta waa laga dardaarmay. shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa.